sharciga dawladda koonfur galbeed u yaala oo ama ay dejisay ama dhaqanka dadkeeda ay ku dhaqdo oo in badan ay ku kala badbaadeen waxa kamid ah qofkii qof dilay in la dilo koor gabnaa magaalada airport garoonka diyaarada way buu haddii xagaay lay kooyto diyaaramaha ka degi karto degmada soo taas noloshii iyo isu soo caqabad ma ka hasobtay waa meel kaliya tan furan badi iyo airport-kaasi ata badana kamid ah magaalada waxa ka jira markaan tagayay horta siyaasadda waa qasnad siyaasadda magaalada horta waa dejinay haddii dhaqan tahay haddii ciidamada ammaanka tahay magaalada way baxaytay meel ciidan isku hor fadhiya jiraan oo mar walba dagaal beeleed iyo dagaal ma artay afkan saarnaa jirtay taas la ku gudbi oo magaalada Baraawe ammaanka naga kulanta fayla khiyaarta sharafta leh raabta adeega ka dhawaada warsa kooban wala doon gudoomiyaha degmada Baraawe caasimadda dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Umar Abdullaahi Maxamed oo ka sugan beledka Baydhabo oo soo qayb galay shirka gudoomiyaalka degmooyinka iyo maamulada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya oo soo gudarar beledka Baydhabo marka hore gudoomiyaha ka dhawaaw My TV sharafaniyatina warsa kooban oo kale walan My TV oo ku soo dhawaay Faisal waa mahadsantahay gudoomiye marka hore mayba faahfaahin oo siyaasad guud ahaan horumarada xaaladaha amniga iyo dadaalada ay sameysay maartay magaalada Baraawe caasimadda koonfur galbeed بسم الله الحمد لله وبنا نستعين على امر الدين والدين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد فيصل ما حسنتها مر لبات وانا كما حسنتها ان ادو مرتقاده ماي تي في magaalada Baraawe Faisal waa magaaladii Baraawe caasimadda dawladda koonfur galbeed runtii magaaladu waxay ku taalaa meel aad ugu fog degmooyinka ay dawladda maamusho runaantii way ka dheertahay waana ma sha Allah hadda si fiican way soo kobcaysaa hadii Ilaahay yiraahdo dhinacyo badan walow hadda uu jiro kulayl badan oo bilowday oo xagga abaaraha hadda marka aad ay u ziyaadeen haddana magaaladu insha Allah taala way soo kabsanaysaa aad iyo aad magaalada Baraawe waa magaalo xadaariya waaye ka waran horumarada iyo dib u dhiska ay sameeyeen markii aad gudoomiyaha degmada lagu magacaay maxaa isbedel ah sameeyeen ninka la yiraahdo Faisal horta sida Soomaaliya hadda waxa xoog la saaraa inta badan amniga dawladda Soomaaliya dawladda Saadida kullu waxa laga wada shaqeeyaa amniga ayaa xoog la wada saaraa waxyaabahan ka shaqeyn waxa kamid ah amniga waxa kamid ah siyaasadda oo siyaasad degan in loo helo degmada in la helo maartay hay'adaha garsoorka ay shaqeeyaan oo maartay garsoorkii oo fulo waxaan sameeynay caafimaadkii inta laga qaban karo la qabto waxbarashadii sidoo kale inahaas nadaafadii dawladda soo taqaana shaqooyinkeeda inaha intii dawladda hoos laga rabay wax badan waa qabsoomeen wax badan oo dhimayeen Faisal dhawaan way baaragaanay xukun dil ah oo markiin koreeyay maxkamad fulido magaalada Baraawe oo ftiirka la jeeyo cadaaladii isu falki jeesi laga fulay falkaas ma hay sinema artaynaankaasi cadaalada ma artay qisaasta isu fuli lanka fuli Faisal waa mahadsantahay ninkaasi kulli waxa ka sharciga dawladda koonfur galbeed u yaala oo ama ay dejisay ama dhaqanka dadkeeda ay ku dhaqdo oo in badan ay ku kala badbaadeen waxa kamid ah qofkii qof dilay in la dilo Ilaahay quraankiisa ku sheegay walakum qisaasu hayaat qofka qof dilay in la dilaa nolosha kamid tahay marka ninkaas inuu dilay inuu tooriyo ku dilay oo walaalkiisa ah maartay isqalba gaareen gacantiisa gaartay asagana waa loo qisaasay cadaaladii ayaa ka dareemaysa in meeshaasay maartay isheeg nidaamka cadaaladin inuu heerkaas marayo waxyaabaha cusub hadda la soo kordhiyay ama la qabtay ama dhidibada hadda loo aasay ay kamid tahay waxyaabaha in cadaalad la helo dadka cadaalad helaan dadkiisi waxay yiraahdeen nolol dilo waana loo dilay ayagoo taagan kulli waa ku muuqato hooyadiisa iyo walaalkiisa iyo in ay meesha taagnaayeen sidaasaan insha Allah taala maartay dawladda koonfur galbeedna qaybtooda cadaaladda sida garsoorka ayaguna insha Allah taala hawsha u fulin maamulkina insha Allah taala wixii markaas ayaguna ay lahaayeen kaalintooda ay u qaateen sano ku warqabna magaalada airport garoonka diyaarada way buu haddii xagaay lay kooyto diyaaramaha ka degi karto degmada soo taas noloshii iyo isu soo caqabad ma ka hasobtay waa meel kaliya tan furan badi iyo airport-kaasi ata
faysal waa mahadsantahay degmadu ceelboorkaas ayaa u ah runtii accesska maanta baydhabo ku xiraya ama xamar ku xiraya ama magaalooyinka kale adduunkuba nagu xiraya ceelboorkaas waay anagoo haddana aan dhinac kale aan ugu gudoomi karno bad aan leenahay baduna ay tahay naftirkeed la mari karo baduna ay tahay meel marin baduhu waa la maraa saad ogtahay doomna waa la isticmaali karaa laakiin sida caadiga ah dadku inta badan doomo kuma kalsoono aniga dee rabraa waskana doominka waa raaci karnaa laakiin ceelboorka ayaa asal ah sidaa sheegtay asigaana nagu xira magaalooyinka kale ama dowladda joogto ama magaalooyinka kale nagu xira sidaad ogtahay dadka baraa waxay u badan yihiin dad qurba jooga way yimaadaan marka ceelboorka ciladaa sheegta wuu leeyahay qorshayaashan ugu horeeyana ka mid ahaa asiga iyo jidka baraawe iyo ceelboorka isku xiraba jidka iyo baraawe ceelboorka isku xira asigana dee howl baa ka socota saad ogtahay mar dhowna howshiisa inay dhismaa ka socday mar dhowna howshiisa xoogaa dibdhac yaraa galay haddana mar aan dibdhac qolooyinkii ka shaqaynaya xoogaa yar caqabadii wax baa ku yimid adoo marka dambe wasaaradda howlaha guud iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis qaralaah siiye is arag iyo isla hadal badan kabacdi in shaqadii dib loo bilaabo ayaa dhacday hadda shaqada waa la bilaabay laamiyaan la saari doonaa hadduu ilaa yidhaahdo garoonkana insha allahu tacaala waa kusoo xigaa maadaama nolosha koowaad ee magaalada uu yahay oo maanta haddii qof xanuunsado oo markiiba aad diyaaradda hor ka dalba kartid ama aad diyaaradda caadiga hataa aad hor ka heli kartid taas focuska yani focusyada noogu horeeyo ama qorshe howleedkeeni ay ku jirtaa sanadlaha ama 5 sano soo socota brow marka la dhaho waxyaabaha shalay ka jiray oo tan iyo markii aad gadoomiyada ku nagatay oo aad wal ku bedelay magaaladii amni bilicdi horumar shaqo korangaade manin ku sheeg kartaa ilaa wax badan ka faysal wax badan ka mid ah magaalada waxa ka jira markaan tagayay horta siyaasadda waa qasnad siyaasadda magaalada horta waa dejinay haday dhaqan tahay haday ciidamada ammaanka tahay haday maamulka tahay haday gulihii deegaanka tahay inta horta siyaasadooda waa degan tahay waa dareem kartaa laftirkaaga muwaadin reer koonfur galbeed tahay magaalada caasimadda war waa ka haysaa tan labaad magaalada waxa ka jira niman gaangiisa oo la yiraahdo ciyaal weero ciyaal weerada waa la dagaalanay waa suulinay tan saddexaad ciyaal bilbili wax la yiraahdo ciyaalkan daroogada cabo wata oo saameeyay dumarkii hata gabdhihiina wadooyin ku dhacay gaareen waxaas ayagana wax baan ka qabanay farmashiyaashii keenayay iyo dadkii keenayay tilaabaan ka qaadnay ruuxantii shaqo badan ka qabanay siyaasadina waa dejinay amnigina waa saxnay oo amniga waa sugno oo waa kan wax mobile lagu dhaco magaalada ma jira hadda magaalada maanta meesha hartaa mari kartaa sidoo kale waxaa jiri jiray ciidamo xabado beerdara askarido oo isku jawaabaa jiri jiray hadda ma jirto askariga xabad rida 5 maalmood la xiraa 5 baalood oo baalood hal xabad doorida 5 baalood laga qaadaa hadduu tamar laba hadduu ridan 10 laga qaadaa marka meel uu ka keenayo mala askariga marka danta waxay badaysaa inuu iska daayo marka waxyaabo badan qabna intaas aan ka taqlusno waxa kale oo jiri jirtay magaalada in la shaqeysi waayo oo guri la dhisi waayo oo maartay qofka hadaad guri dhisanayso matalan oo dawladda hoos warqad ka soo qaadato inuu askari kale ku yimaado ku yiraahdo aniga ii dhib qaybteeda warqadana haysta warqadda ma aqaan inuu yiraahdo taas hadda ma dhacayso taas ayadana waa la dagaalanay waa ka taqlusnay saraakiisha qaralaasi ammaanka ee ka shaqeeyay magaalada Baraawe shaqooyinka badan hadda waa qabanaan kuleena saraakiisha ammaanka qaybka ah runtii laakiin aniga fikirkii iyo wixii in la daba kaco la muraaqabeeyo oo la yiraahdo war halkaas hawsha halkaas loo qabto ayuu maamulka insha Allah taala leeyahay inuu daba istaagay hawshaasna inahaas aan ku sheegay inaan la soo qabtay in kala faysal magaalada way baxaytay meel iyadan isku hor fadhiya jiraan oo mar walba dagaal beeleed iyo dagaalam artay afkan saarnaa jirtay taas la ku gudbi oo magaalada Baraawe ammaanka naga faysal waa mahadsan tahay ciidamadii is hor fadhiyo way jireen ciidamada is hor fadhiyo oo mararka qaar waliba xabad isku rida laakiin hadda ciidamadii is hor fadhiyo jira hadda way isku dhex jiraan way isla shaqeeyaan waa la mideeyay saraakiishooda la mideeyay wasaaradda amniga qaralaasi wasiirka amniga ugu horeeya Xasan Cabdi halkaan ka salaamaya saaxiibkay wasiirka iyo taliyaha daraawiishta koonfur galbeed Meeday Colonel Meeday qaralaasi gaashaan dhaxa inuu yaan filayaa sare wuxuu yahayba Allah darajadiisa Allah ziyaadiyo waxbay ka qabteen tagitaanka ay tagan waxbay ka qabteen runtii wasiirka amniga uu ku noqday magaalada in badan tababar wasi ciidamada booliska iyo ciidanka daraawiishta iyo ciidanka SNA oo meesha jooga intaba ciidamada hadda way isku dhex jiraan mideeda kale sharcigan oo waxa la geeyay meesha oo qofkii qof dil in la dilayo oo wasiirka amniga waxyaabo oo ka soo saxeeyay ragaan waxa kamid ahayd 9 qodob oo ay kamid tahay qofkii qof dil in la dilayo
taa bedelkeeda marka waxay noqotay in askartii saaxiibo noqdaan oo is amaan geliyaan oo ay isku milmaan waxaad arkaysaa ayagoo isku dhafan mararka qaar fiidiyooyadaas waa heli doontaa ama sawirada ayagoo isku dhafan oo hal meel loogu qudbaynayo oo wada shaqo wada qaadanayo oo mar walba yani howlgallada isla fulinayo howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayo isla fulinayo isla jira waad arkaysaa ayagoo mar madaxdiisa soo dhaweynayo waad arkaysaa oo salansaar u sameynaya marka taasaa looga takhalusay Faisal wayna jirtay runtaa ila ma sanad gadoobe magaalada wayba ku sooday ololo oo roog la ka dhigo garoonka garoonka bilowga lugta ee degmada Baraaw Ali Umar Sheego taasoo wadan dhalinyarada deegaanka oo iyo suubiyaan ololo oo iskaashi oo deegaanka maartay isdhexgalka bulshada hooji ka maamul ahaan maartay in dhiirigeliyay barnaamijkaas iyo ololaha iyo wadan dhalinyarada deegaanka Faisal waa mahadsan tahay waxyaabaha horumarka ay magaalada ay ku socotay kamid tahay maamulku wuxuu dhiirigelinaa maamulka asaga soo bilaabatay shaqada in asiga oo dhalinyarada abaabulo oo isxilqaam ay sameeyaan asiga ka soo bilaabatay in yaani maartay ayagu u kacaan oo hawshooda qabsadaan cid walba waxay qaban karto qabato dhalinyaraduna ay yeeshaan sidooduba akoon yeeshaan maamulka ka soo bilaabatay asaga abaabulay wana garab taagan yahay wuxuu ugu deeqayna way jiraan laakiin halkan kama sheegayo oo ku dhiirigelinayo contribution-ka oo ku dhiirigelinayo dhalinyarada marka garoonkaas waa jira iyo meelo kale oo badan meesha hadaan ka gudubno hadana meelo kale jira oo insha Allah taala dhalinyarada ay u kici doonaan waxaad ogtahay wadankan wuxuu haysto hantida uu haysto dhalinyaro waa hanti kale ma haysto wadankan hanti uu leeyahay laakiin banaanka ma taala hantidiisa waa sidoo kale shidaan ma qodna baarihi dahabkii wixii lama bixiyo laakiin dhalinyarada ayaan haysnaa hantida hadda aan haysnaa noo muuqata dhalinyarada hadaan abaabulno ayaga jiheyno waan insha Allah taala wax badan noo qabsoomay taasayna qayb ka ahayd ninka la Faisal garoonkaasi marka iskaashi walka dhiso koreysata reer Baraaw soo ku wargamna dalid dibada rogaa islatina marka garoonkaasi iskaashi iyo nan walba contribution jeedo qaado karo oo garoonkaas roog iyo aan baahan galcaan shishe iyo hay'ado wal lagu sugna Faisal saad ogtahay reer Baraaw saad sheegtay qurbahay u badan yihiin gobol dhan Mareykanka hadda gobol ay degan hal gobol dhan reer Baraaw degan ma garat gobolada qaar gobol aysan deganeen ma laha hal gobol horta ayaga degan la dhigaa ma garat sidoo kale London sidoo kale inay xaafad dhan afar u qaybsantaa westiga iyo estiga iyo northka waxay u qaybsato meel kamid ayaga degan marka reer Baraaw haday u kacaan waxaan kaliya Ilaahay ka baryaynaa inay niyadooda madoodo ayna u jeestaan wax ka badan ay sameey karaan wax ka badan hadda waxay rabaan inay dekad dhisaan garoonka ka hadlaysaa inay dekad dhisaan dekadii Baraaw in badan waa shirkado iyo kambaniyal iyo madax dawladdu waa loo geeyay laakiin hadda go'aanku wuxuu yahay in ay u isxilqaamaan ay lacag isku darsadaan ay dhisaan ay go'aanka yahay ugu dambeyn muddaas insha Allah taala ay leeyihiin ayna yeelo doonaan aan rajaynayna dawladda yar insha Allah aan ka dambeyn fariinta meelta oo aad bulshada Baraaw ee guud ahaan dawladda koonfur galbeed oo aad fariin aad dir lahayd bulshada guud ahaan horta bulshada koonfur galbeed fariinta u diray waxay tahay reer koonfur galbeed horta sida aad maamulkiina iyo dawladdiina aad ugu faa'iideysateen nidaamka dawliga aad ugu faa'iideysateen oo kuma santeen insha Allah taala maamulkiina iyo mar walba garab taagnaada dawladdiina dawladnimo ayaa dadnimo leh dawladnimo la'aan waxay tahay reer koonfur galbeed oo soo arkeen waana ku soo rafaadeen hadda laakiin waxay u jihaysteen wadada dhabta ah wadada horumarka ay hadda cagta saareen ama hayaanba marka waxaan ugu baaqayaa horta wadadaas inay hayaan aysan sii deyn tan kale waxaad arkaysaa Baydhabo caasimad waa magaalada caasimada Soomaaliya waa la dhihi karaa markaan way isbedeshay waa dhisanto horumarada ka muuqda daarto waa yaabasha marka sidoo kale reer Baraaw waxaan leeyahay reer Baraaw wadankiina ku soo laabta maalgashta waxaad meelaha ku qubaysaan lacagaha meelaha ku qubaysaan sida aad Mareykan iyo Dubai iyo Kenya aad dhisaysaan idinku muskalidiin meeshaan leediin awoobiyaashiina la hayaan idinkuna aad la yeelan doontaan halkan kaali lacagtiina galiya dekadiin dhista elbooradiin dhista kaali shaqaysta waliba hataa macdantii noocyada kala duwan dhulka ka buuxda kaali soo faagta oo qalabkii la imaada saasan la reer Baraaw aan diilay raado Faisal aad iyo aad ma santahay gudoomiye waqtiga qaaliga kuma handagaan shaqada ma taankeed